بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan ugu baaqaynaa dadweynahan oo meesha oo ku soo kulmay raashinkan aad u jeedaan waa raashin oo macnaha oo loogu talagalay afurinta dadka oo laga iibinayo waliba laga iibinayo waa u jeedaan alaabtan waad arkaysaan waxa la yiraahdaa dhaylo ari iyo bola al diawol bola arosto bola al signig tala biyango waa degmada afgoy lagu cunaa waxa lagu cunaa degmada afgoy waxaan bilawnay 12 sano ka hor ayaan afurintan aan bilawnay degmadan aan u bilawnay qudaarteedii caalamiga ah waatana waa u jeedaan waa bahashaani aad u jeedaan waa qudaarta caalamiga ah iyo ukunta oo caalamiga ah buufiska maaha waa midda oo Soomaalida leedahay oo wadaniga ah qudaarta waa wadaniga arigana waa dhayladan waa ariyaashan oo u jeedaan dhaylo weeyaan waa u jeedaan dhaylada oo bajaqda ayaa la cunaya degmadan waa degmad baahad leh oo wadnaha Soomaaliya waxaan ugu talagalnay in afurka macnaha ay macnaha ummadan ay ku afurto say u nafaqowaan ileen macnaha barwaaqada ayada iska taal beledka iska taal barwaaqo Master Cilad waxaan ku weydiinaynaa waxa arki jirnay maqaayad loo tago la fariisto kuraas leh VIP leh hadda waxa keentay maqaayad oo sidii caru istaago kale ka waranba waxa loola jeedaa maqaayadan afurinta Shamsuddin waxa loo keenay 12 sano ka hor ay macnaha Shamsuddin horteeda ay dhisneed maqaayadan waxa weeyaan maqaayada afurinta dadka oo Soomaaliyeed oo degmada Afgooy oo madaxda iyo odayaasha waxa loogu talagalay dadka oo xanuunsan oo dhiikarka qaba si oo macnaha iyo dadka oo sokorta qaba raashinadoodii si loo kala saara oo macnaha si wanaagsan loo kala saara in macnaha waxaan rabaa dad wax badan kookiyaasha degmada inaan macnaha siminaara aan u fidiya oo ay ku soo macnaha ay u arkaan raashinka macnaha qaabka loo sameeyo iyo nidaamka oo raashinka uu ka baxayo maxaa yeelay dadka sokorta qaba iyo dadka oo dhiikarka qaba iyo intaasoo badan waxa isticmaalaan ayaan macnaha boonooyin ugu qoraya waxaan macnaha siminaaro aan ku qaban doonaa 10ka dambana siminaaro ayaan bixin doonaa dadka dhiikarka qaba iyo dadka sokorta qaba cunudoodii iyo boonooyin inay bixin doonaan si ay macnaha ay u maareeyaan degmadan oo macnaha maalkino odayaasha iyo dhagaradka iyo dhalinyarada dhammaan inay macnaha maalkino ay horumar ku gaaraan Mr. Cilad Farsamo ma laga yaabaa mustaqbalka dhow ama mustaqbalka fog in xaaladda oo tan wax ka bedesho ku biirto macnaha sida baararka waaweyn meelaha oo loo dalxiis tago iyo waxyaalo la midka anigu waxa weeyaan degmadan iyada loo soo dalxiis tagaa ma ahan degmad oo laga dalxiis taga ma aha degmada Afgooy ayaga dalxiis loo yimaadaa annaga waxaan ku noolnahay degmada Afgooy waa degmada oo wadnaha Soomaaliya waay oo uguna fiican uguna wanaagsan in lagu noolaadana oo ugu fiican way maxaa yeelay degmadan u jeedo ku soo dhawaada 10ka dambana waxaan rajayn doonaa inaan boona aan bixin doono oo farii ah aan boona aan ku dhiibi doono oo farii ah boonooyinka say u qaataan dadweynaha ma arkin oo 10ka dambe farii in laga dhigi doono ayaan rajaynaynaa hadii Ilaahay ka raali noqdo insha Allah Master Cilad Farsamo ku salaamayna khayr ayaan rajaynaynaa